وسو dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland muuse biixi cabdi oo ka soo noqday safar ugu maqnaa dalka Guinea boqolaal shacabka magaalada hargaysa ayaa kaga hortagay garoonka diyaaradaha ee Cigaal iyadoo madaxweynaha Soomaaliland ay shacabku ku soo dhaweynayeen halku dhugyo ay kamid ahaayeen ku soo dhawow dalkaagii hooyo ee aad guusha u soo hoysay calamada Soomaaliland iyo dalka Guinea ayaana la suray shaariicada waaweyn ee magaalada hargaysa iyadoo sidoo kalena wadooyinka magaalada hargaysa lagu dhajiyay sawirrada labada madaxweyne ee muuse biixi cabdi iyo alfa konde maanta shuruucda dareenkayga lagama shaqayn karo kaligeena maaha waa Soomaaliland oo dhan mucaarad iyo muxaafidba maanta waa mid qura cadawgu waxa shaqaynay guul waan soo hooyay madaxweyne guulaha iyo guulo kale oo badan waxaanu kharajeynaa inaad soo hooyso madaxweyne dareenkayga maanta lama qiyaasi karo anagu waxaan isku haysanaa inaanu nahay caruur aabahood soo dhaweynaysa haddaan nahay shaqo qaran waa haldoorka qaranka soo dhaweynayaan barbaartii shaqo qaran dareenkayguna aad buu u faraxsan yahay hab qiiro iyo qiimo male ayaanu ku soo dhaweynaynaa haldoorka qaranka haddaan nahay barbaartii shaqo qaran madaxweynaha waftigiisa guusha ballaadhan ka soo hooyeen socdaalka ay ku tageen dalka Guinea waxaan shacabka Soomaaliland kula dardaarmayaa midnimada iyo wadajirka iyo sida maanta aynu qarannimadeena ugu heelanahay inaynu ku wadno madaxweynaha iyaga adduunka Afrika madaxweynaha la mid ah ama hormar lama heli karo marka alxamdulillah rabbil caalamiin baan leenahay ragga soo hadlaya ee soo badhaqdahayana guriina baqtiyan leenahay maanta walaa maalin qaran maalin weeyaan nima soo koob karaya dareenkayga haddaan nahay shaqo qaran anaga hantida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu soo dhaweynaynaa maanta guuluhu ka soo hoyay wadanka Guinea waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow dalkaaga dadkaaga jecel iyo bahdaada shaqo qaran oo ku jecel safarka uu madaxweyne muuse biixi cabdi ku tagay dalka Guinea oo ah kii ugu horeeyay ee madaxweyne Soomaaliland ah uu ku tago dalkaasi ayaa waxa uu xiisad ka dhex abuuray dalalka Soomaaliya iyo Guinea iyadoo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ay xiriirka u jartay dalka Guinea azahaatee madaxweynaha Soomaaliland muuse biixi cabdi oo shacabka kula hadlay goob fagaara ah ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya xiriirka ay u jartay dalka Guinea ay tahay cadaawad ay dawladda Soomaaliya u hayso dadka reer Soomaaliland isagoo madaxweyne muuse biixi cabdi carabka ku adkeeyay in Soomaaliland ay sii wadayso xiriirada ay la yeelanayso dalalka caalamka isla markaana toddobaadkan gudihiisa uu safaro caalami ah ugu baxayo qaar ka mid ah dalalka dunida weeda xamar ka soo yeedhay laba qodob ay daaranta waa laba godobood godob waxa weeye iyaga oo iyaguba magan waa ciidan shisheeye oo ilaaliyo ayaa waxay maageen dawlad ilaa iyo sadurtankii xor ahayd oo sanadkii dhaqaalaheedu boqolkiiba kordho oo dadkeedu dhow 10 milyan yahay oo horumarka iyo xawliga weyn samaynaysa ayay maageen ku yidhaahdeen sidee gurigaaga Soomaaliland ugu casuulka taasi waa go'ay ka galeen Guinea tonakari iyagaana iska celiyay iyagoo intii iyo ka badan loo leeyahay dagaal kale iyaga iska celin kuwaas dawladda labaad waa Soomaaliland waxay leeyihiin markay leeyihiin maxay u casuuntay Soomaaliland ma dawdo maamuuska intaa leeg in lagu soo dhaweeyo gudaha ma aha maxaa maamuuska hoos waxaa la yaabanahay ragga xukuumadda ka tirsan ee sidaa ku tashaday marka hore dawladda intaa leeg waxa ku dhifayay hebel uma qalo maamuuska iyo qaranka intaa leeg uma qalmo maamuuska waa dawladda intaa leeg waxa u bareereen waa la soo diiday marka laga soo tago inay arintani tahay soo dhaweyn madaxweynaha Soomaaliland oo ka soo noqday wadanka Guinea sidoo kale waa dhoolatus laga soo horjeedo go'aankii dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay wadanka Guinea kadib markii wadankaasi uu boqosho ku tagay madaxweynaha Soomaaliland isla markaana ay dawladda Soomaaliya xiriirka u jartay iyadoo sheegtay in dalka Guinea uu ku xadgudbay qarannimada Soomaaliya Khalid Fodadi goob joog hargaysa